diinta islaamka walaala ku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonaya walaalayaal oo qofka muslimka kale waa walaalka muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso calaa kulli muslimin sadaqa waagu markuu barya buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu yidhi hadduu haysanna fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysan uu siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn sidaana markaasuu nebigu yidhi yuciinu dalxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu ay haysatee madluumka ayuu xooggiisa ku caawinoo uu u gurman oo wuxuu leeyahy war ninkan waa laga gardaranya gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduuna sidaas samayn baa nebiga laga yidhi wuxuu nebigu yidhi ya'mur bilkhayri dadku wanaagga fari hadduuna sidaas samaynna sharkiisuu ummadda ka haysan uu meel kala fadhiisan intaabaa qofka mu'minka sadaqo ugu filan buu rasuulku yidhi war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayey sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiista isordhig sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa dilkiisana waaba lagu gaaloobaa buu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiintu walaal waa walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa ghaswadii yarmuuk 3 nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid a ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horreeye la gaadhay wuxuu leeyay biyo igu qabta cikrimu ahaa markii biyihii la yidhi hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kaleoo ka shisheeyoo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadha biyaha kii baa lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonahe ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninna uu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayuu leey isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anuu han dhinto walaalkay ha noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anuu ha noolaado adu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa jooga muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaad ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiisku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culummada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji miskiidkii nebigeennu soo galay alay slat slam waa khasraji halkaa waxaa fadhida ansaar aws khasraj muhaajiriin xalaqad wuxuu dul tegay bilaal iyo salmaan iyo camaar ay fadhiyaan markaasuu yidhi kuwa haddeetoola maxaa looga baahan yahay buu yidhi kuwa ninku tolkii buu hele mucaad binu jabal baa ninkii halkaa qabtay war maxaa tidhi
waan kaftamayna hadalkaana waan idhay markaasuu mucaad halkaa isagoo hayuu nebiga ninkii u geeyey sal lla alay slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmay masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyadduna aabba iyo hooyeynimaa buu ka yidhi faman tacallamahaa ninka luqada carabiyadda ku hadalkayga bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu yidhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay deetol waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddee toole kelmaddaa uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilahay ka qaatay isagoo murtadana la soo dilay marka ikhwata aliimaani walislaam khayr baa inaga muuqdaa dad muslimiina oo luqo keliya ku hadlayaan nahay naku ilaahay baa naga dhigay waa ilaahay waa noo nicmeeyey wallaahi nicmadda ay soomaalidu haysato carabtay diintu luqadooda ku soo degta ma haysata maanta masaajidda iyo culummada iyo ardayda xafadatu kitaabillaahiya iyo maaragtaani madaarista iyo nashaadka dacawiga ee meel alliya meeshay soomaali ay degtoo dhan maanta ka socda carabtii qur'aanku luqadooda iyo dalkooda ugu soo degay wallahi inay nicmaddaa haysan maanta ayaan dhawayto annagoo madiinat almunawara joogna xashki imika matcamaan ka cuntaynayna ayaan ku aragnay nin dhallinyaro sacuudi oo surwaal gaaban halkaa ku jooga sita jiwaar masjid nabowi agtiisa matcam masaajidkii nebi maxamed aan ka dheerayn ayuu surwaal gaaban sita sheekh ismaaciil baa yidhi orbul xuseen oo eeg buu yidhi haan eegaa baan ka yidhi sheekh waa wax laga murwooday jabuuti oo waddan uu gaal isticmaarsanayeyna sagaashameeyadii baa noogu dambaysay qof surwaal gaaban qaata waxaan ka wadaa nicmadda inaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacawiga masaajidda iyo bii'adda diiniga ee mujtamaceenna luqadeenna ku hadlaya ilaahay siiyey war waa nicmo ilaahayna siiye ilahay aan ugu mahadinno lain shakartum la asiidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukru ljawaarix bilxamdi taduumu nicam wa bishukri tazaadu nicam xamdigu waa ka carabka weeyaan shukriguna waa ka camalka weeyaan salaatu leylku nebigu u kacay rakacad keliyuu ku tukaday 5 juz iyo badh ilaa lugihii barreen caaisha ku tidhi lima tasnacu haada waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar muxuu ku jawaabay afalaa uxibu an akuuna cabdan hada huwa shukr marka nicmadda ilaahayna siiyey inaan ku shukrino oo masaajideenna tacliinteenna dacwaddeenna khayrka aan ka wada shaqayna soo diyaar manihin insha allah dhahada